dareemi karay wuxuu sheekhu nin cibaado badan ilaahay caabudo subhanahu wa ta'ala wasalaada jamaaca aad u ilaaliya sunniyaasha ilaaliya habeenkii salaatul leylka dhaqan waxa uu ahaa kowdu haday dhacdo in badan baan safar la galay kowdu haday dhacdo waa kacay kaday kowdu dhacdo waa kacay uu tukanaya wixii Allah u qadaro uu yara seexanaya uu soo kacaya hadana hadhow labada iyo xoogaa waa tukanaya dadka afarta iyo meelaha toosa markay la joogan waxay moodayaan inuu habeenkiiba aanu kicin xilliga dadku tukanayaan afarta habeennimo ay tahay waa bari uu ku dhow yahay ayaa marka intuu la kala baxo haduu leer jirana kitaabka leerka intuu daarto kitaab iska akhrisanaya ama toojkiisu isticmaalaya oo akhrisanaya waxa sheekhu nin duca badan oo barya badan ilaahay aad u barya khaasatan habeenkii gelinka dambe iyo subaxii markuu duxada tukado oo kale aad Allah u barya wuxuu halhays u lahaa sitraka ya rabbi ilaahu waxaan ku weydiisanayaa asturkaaga ilaahu adduunyo aakhira ya astur ayaa halhays u ahayd marka uu kacayo markuu fariisanayay marka maarta ya rabbi sitrak gooran jiri ya rabbi sitrak ilaahu inaad asturkaagan ku weydiisanayaa ya asturto ceebtayda adduunyo aakhira abuha sheekhu wuxuu ahaa nin dulqaad badan mid af wax ka yiri mid maagay mid wax u geystay muraadka ma lahayn sheekh rahimahullahu ta'ala waqaa'ic badan ayaynu isla soo marnay nolosheena badan aan ka ogeyn waxa sheekhu rahimahullah rahmatan wasi'a duruufta adduunyada iyo nolosheeda micna badan ba kuma lahayn waxaan garanayaa isagoo oo duruus noo akhriya wax noo dhigaya oo subaxi kadib akhrinaya oo duhurka ka hor dhigaya oo waxaan garanayaa haddana laga yaabo inaanu qadayn marka qaarkood oo marka 10 ka baxno intuu yeedho yiraahdo xaafadii orodo dheelka tag ka soo qaad nafar bariisa xaafadii orodo gee masaajidkaana igu kaale oo marka aan qaado xaafadii geeyo sheekh rahimahullah rahmatan wasi'a yani duruufta dhaqaale micna lama lahayn adduunka haduu qado haduu dhergo micna lama lahayn wa intii reeraha dambe caruuraha dhalay aan guursan sheekh rahimahullah rahmatan wasi'a waxaan garanay marka subaxii kitaabka ka baxno guri halkan uu sheekhu lahaa ba ardaydu ku dareeri jirtay marka kitaabka ka baxno markaasa gacanta la saari jiray oo aan ka shaqayn jirnay marka ila barqa kulul aan ku gaadhno ayuu sheekhu isagoo wada bunoo keenaya shaah iyo kimis sheekh maxaa dhacay la 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 ya saas ma sax maaha markaasa wasagu inuu qaybiyo oo shaah dadka u shubo kimista siiyo waa ardaydiisii oo aqalkii ka shaqaynaysa ma aqbalay isaga shubay oo kimis dadka siinay markaasuu fadhiisanaya oo wax la dadka ardayda wax la cunay waxa dhacaysa isoo kitaab ka baxay inuu mid ardayda kamid ah yiraahdo halkaas aan rabaa sheekh inay xaajo igala soo qabato yiraahdo keen uu raaco gawaaridan iyo banjaajiyadan iyo waxani ma jiraan waa wax kooban baabuurta magaalada ka shaqayn jirto joogay xilliga dhoori sagaashanaadka in marka cibaado badan oo deeq badan tawaaduc badan ayuu sheekh rahimahullah rahmatan wasi'a Allah wuxuu yiri man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin ya ka oraah wanaagsan oo ka hadal fiican qof ilaahay dacwadiisa iyo diinta dadka ugu yeedhaya qofka ka hadal iyo oraah wanaagsan waa ayo oo muuminka ah ee amalka saalixa sameeynaya ya ka hadal fiican al-Hasan al-Basri ayda markuu fasirayo هذا حبيب الله قفك عين كان وحبيبك إلهي هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته ودعا الناس كرامة كويني مجر غفك إنه دينة إلهي هي دعوة خير كشقي من دل على خير فله مثل أجر فاعله qofka dadka khayr iyo wanaag tusa waxa uu qofkaasi leeyahay qofkii khayrka uu tusay ku dhaqmay la yimi ajarkiisa kale helaya sheekhu waa dhintay rahimahullah sida culimadu u dhimatay hore buu dhintay wal maut haqqun geeridu waa xaq naf wali waa dhimanaysa kullu nafsin dha'iqatul maut naf wali ba geeri bay dhadhaminaysa fi surati al-imran fi surati al-jumu'ah قل إن الموت الذي تفرون منه
فإنه ملاقيكم في سورة سجدة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم geeridu waa xaq naf wala waa dhimanaysaa naf waliba waa dhimanaysaa laakiin shahaada u rajaynayna sheekh shahaada u rajaynayna rahimahullah rahmatan wasi'a wa rasuulku wuxuu yiri al hariiqu shahiid qofka gubta oo dab uu ku gubtay u dhinta shahiid weeyo nabiga kaleey salaatu wasalaam way gubeen sheekh gubid kaliya maaha jirkiisii bay googooyeen inta bam loogu xiray buu cadcad u googooay jirkiisii ninkii ururiyay wuxuu yiri afar marka loo qaybiyo qayb wax la eg baan helay jirkiisii qayb wax la eg baan helay buu yiri xaad yani waa nooc naxariis dare meeshii u dambeysay weeyaan laakiin isagu waa ka raaxaystay adduunyada insha Allah shahaado baan ilaahay uga rajaynaa subhanahu wa ta'ala una ku talagalay geerida inuu dhimanayna waa isaga cilmigeedina waa laha dadaalkeedina waa sameeyay amaanaadkii iyo mas'uuliyaadkii uu hayay intaanu bixin uu iska ka tartiibiyay xitaa caruurtii aqalka joogtay uu kala ratibay adeerada iyo waalidka uu ahaa wuxuu ku daro maraakis ku daro wuxuu kala habeeyo waa habeeyay sheekh wixii uu amaanaad iyo wixii kala qorshii uu habeeyay sheekh rahimahullah ta'ala kitaab hal mujallad aniga uu iga hayay waa yeeray kitaabkii qofii soo dir waan safrayaa kitaabku amaanaadkan wareejinaya kitaabkii waa ii soo celiyay yani uu ku talagalsanaa isagu waa ku talagalsanaa inuu tegayo qof walba inuu ku talagalo ayaa la rabaa oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ugu dhawaado waqtiga iyo khayrka uu sameeyay rasuulku sallallahu alayhi wasallam abi darda wuxuu yiri rasuulku oo leebaan maqlay fadlu al-aalimi 'ala al-'aabid ka fadli al-qamar laylat al-badr 'ala sa'ir al-kawaakib qofka caalimka ah qiimaha iyo fadliga uu dheer yahay qofka cibaadaysta laakiin aan cilmi lahayn waa sida dayaxa fariyo tobnaada ilayskiisa uu ka iftiin badan yahay xidigaha kale wa innal ulamaa warathatu al-anbiya culimadu waa kuwii rususha dhaxlay innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman nabiyadu dadka may dhaxalsiin dinar iyo dahab minaba walakinnahum warathu al-ilma laakin umada anbiyadu waxay dhaxalsiiyeen ilmi faman akhadahu akhadha bihadhin wafir qofkii cilmigii anbiyada qaata wuxuu qaatay nasiib weyn buu nabigu alayhi salatu wasalaam as'alu allah an yaj'alana minhum abu daawud bi hadithka wariyay wana darajadiisu hadith sahih oo riwaayadkiisa kala duwan allah subhanahu wa ta'ala dadka ahlu ilmiga aad buu amaanay quraanka yarfa'u illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat afar meelood baa quraanka lagu sheegay rafcu darajaadka dadka iska leh taasaa kamida allah sheegay subhanahu wa ta'ala bal huwa ayatun fi suduri alladhina utul ilma quraankani waa aayado ya laabta ku hayo garanaya quraanka kani dadka ahlu ilmiga baa allah tilmaamay fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun su'ala dadka ilmiga ya aqoonta u saaxiibka hadaydina waxba garanin bu allah yiri subhanahu wa ta'ala Anas ibn Malik radiyallahu anhu wuxuu yiri sahibul ilmi hadithka rasuulka sahiha sahibul ilmi yastaghfiru lahu kull shay'in qofka ilmiga lihi cid wax waliba dambi dhaaf bi alla u weydiinayaan hatta al-hut fi al-bahri hatta kalluunka badda ku jira ilaahay subhanahu wa ta'ala buu fadli u weydiinaya iyo dambi dhaaf iyo maghfiro ay u weydiinaya rasuulka alayhi salatu wasalaam hadithka abi hurayra oo sunnah tirmidhi uu ku soo saaray imaam tirmidhi oo darajadiisu hasan sahiha uu ku sheegay sheekh albanina uu leeyahay hasan li ghayrihi ayaa rasuulka agtiisa waxa lagu sheegay dhukira li rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam rajulan ahaduhuma aabidun wal aakharu aalimun rasuulka agtiisa waxa lagu sheegay laba nina uu yahay nin caabido cibaado badan ninka kalena uu yahay nin caalim ah faqala alayhi afdalu salati wassalam fadlu al-aalimi ala al-aabid ka fadli ala adnaakum fadliga qofka caalimka ah dheeraadka uu dheer yahay sharafta iyo manzilada iyo makaanada qofka caalimka ah qofka caabidka ah laakiin aan aqoonta lahayn uu la dheer yahay waa sida anigu uga fadli badan oo uga sareeyo kiina uga hooseeya
xitaa rasuulku tawaaduc buu leeyahay de ka u sareeya xataa saxaabadu la hadlaya inaga ma hadalku wuxuu dhacay waa saxaabadiiba waa hal qabsigu yahay laakiin hadalka inagoo dhan buu noo jeedaay waxa weeyaan ka u sareeya xataa rasuulku ummadda waa ka fadli badna markaasuu rasuulku wuxuu yidhi ina allaha wa malaa'ikatahu wa ahla asamaawaati waalardi xata annamlatu fii juxriha alle subxaanahu wa tacaala malaa'igtiisa samaawaadka ehelka jooga oo dhan xitaa qudhaanjada godkeeda ku jirta xata alxuut xitaa kalluunka badda ku jira la yusalluuna calaa mucallimi nnaasa alkhayr waxay u ducaynayaan oo ammaan